السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا صاحبة قيمة هي قدرت مدنك وحنا جنالك ولا لها فاميلي ومركل يا مقال هور لو نديك ديارين تحنا لما قعبها مسلسلك ولا لها هذا ما مسلسلك ولا لها كعصب سيدو كلام حاكو سو كور لداود هدية مركو سو بوقت جنال كان سبسكرايب نو صار سيدو كلام مقال لايك نو صار وما سنتي تاك بعد يا سودو واتاي كوسكوس كلا بعد حلقة دي لحدني كوباد يا أها رونتي مد آدي وحيسة بدن كدي مركي عن كوسكوس كوارن عمر ودهايا هذا إن كان أبايق ميا هذا عمر هذا الكاس محاكا كان سيدو كلا يوقت كاس يولها لايي dadka intooda badan Umar waxa la leeyahay waqtigaas wuxuu la hadlayay Susan halkay dadka qaarna leeyihiin Umar xiligaas wuxuu la hadlayay ayaydiisa waa tahay gooska dhaxdiisa maana arag Umar ayaydi waxana aqsan mar baadii ogaad Axmed Ilmaasin iyo abiisa muxuu xanaaqi waayay wadaadii seefkii ahayd ilaa uu ogaan markaas kadib in seefkiita ayaydiisa sidoo kale waxa laga yaabaa inaan loo sheegin in seefkii ay tuurtay ama yacni seefkii ka dambeysay Umar banaanka la dhigo oo sidaasi Asiya iyo hooyadeeda ay ku soo korsadaan marka waxa soo dhan loo sheegin ayaa laga yaabaa marka Umar uma xanaaqi doono wadaadan ani ahaantayda sababtoo ah gooskoska kulli kuma arag lagana yaabaa inuu xanaaqo xalqada dhamaadkeeda hadaba waa goormee intaan Umar ogaanayo Axmed inuu yahay abihiisa dadka intooda badan waxay leeyihiin wax xalqada dhamaadkeeda dadka qaarina waxay leeyihiin lama hubo inuu ogaanayo hadalkaasi kaliya su'aal ayaa ahayd qofku uu weydiinayo wuxuu ugu jawaabi doonaa maya ayuu ugu jawaabi doonaa qofkaani aabahaaga ma aha kadib Umar ma ogaanayo laakiinse badi waxa loo badinayaa inuu Umar xalqadan ugu soo wajahan ogaan doono arrinkaasi halkaasina ay mushkiladaasi ku dhamaan doonto ama Umar abiisa sidaas uu ku ogaan doono wixii inta ka dambeeyay arkayna bal wuxuu sameeyo sidoo kale qodob kale muuqaalkan uga hadlaynaya waxa yahay dabcan Susan iyo Umar halkay ku dambeyn doonaan sidoo kale dagaalkooda ma sidaan ayuu si socon doonaa isla gooska mar kale ayuu dagaalkooda bilowday oo Umar wuxuu ka canaananayay arrinkii ay sameysay ee Saarba wuxuuna ku dhahay Masaarbe garabkiisa ayaad rabtaa inaad taagnaatid ayadana way ka argudanaysaa oo kaliya dadka badi waxay leeyihiin Susan waxay sameyn doontaa ama Suuse waxay sameyn doontaa in ay Umar raali geliso kaliyana ay rabtay inay ka argudato ama wuxuu dareemayaa ay aragto si Masaarka wuxuu yahay uu ogaado astaghfirullah alazim badi dumarka badan bay la tahay Masaarka marka waxay la dadku si u badinayaan Suuse ayaa heshiiska soo bandhigi doonta Umar maba diiday Soomaaliya isaguba hada koor Suuse dib u geystay ahayd ama yacni qalad uu ka geystay ahayd sidaas daraadeeda Suuseena markii uu soo bandhigto heshiiska Umar horu ku galanaya halkaasi ayana ku sii wada socon doonaan waa tahay waxa jira sidoo kale gooskoska waxaan ku aragnay mowduucan mar badan ka soo hadalay muuqaaladii u dambeeyay qoftii ninkii Caakif ay sidoo kale qoftii Susan ahayd oo laga soo buriyay guriga waxaana ka soo burisay qoftina bahadayd ayaa ka soo burisay banaanka inuu soo bixisay ay ahayd sidoo kale Susan soo socotay waxay caawimaad weydiisatay Umar Caakifna wuxuu caawimaad weydiistay islaantii Shanguul ahayd halkaas ayayna joogan ay ahayd oo halkaas guriyihii Shanguul ay wada joogan Caakifna wuxuu la saaxiibay Wildaniyo Susan ma shay karin gurigoodii hore ee xaafadahan ku yaalay inay kareysatay inay la joogto ma shay karis laakiin waxaan wada aragnaa casho ay dhamaanba ka soo qayb galeen Caakif sidoo kale Duruuk Umar Asiye IBK Uljan Shanguul Emel kulli wada joogeen odayga Orhaan ayaan ka maqan ayaa filayaa sidoo kale odayga Orhaan wuxuu ku mashquulsan yahay xalqad soo socota qoftii Goonuul ahayd maadaama Goonuul furin dalbatay arrimahaas ay ku mashquulsay laakiin wax macluumaad kama soo bixin inay safar doonaan sidoo kale inay kala tag doonaan iyo inay joog doonaan balaakiin xalqada ayaa dhow habeen dambe ayaana la daawanayaa waxaana filaynaa xalqada habeen dambe la daawanayo in ratingkeedu kor u kici doono insha Allah ta'ala hadaba sidoo kale waxaan gooskoska dhaxdiisa ku aragnay arin isaguna bariyaan la hadalhayay qoftii sheewaa lahayd waxay isbaraysaa nabaad waxayna ku dhahaysaa aniga waxaan ahay ninka asheerka wadaagtiin xaaskiisa ayaan ahay sheerna macna waxaan kala wadaa bartender oo kale ayaan ka wadaa sidii hadda ka hor Caakif iyo Rasuul Oskaya ama Raamume oo taqaantiin adii cala kulli xaal beerka abiisi Caakif sida isku ahaayeen ayay hadda nabahadi Axmed Ilmaas isku noqdeen marka sheewaal waxay aragtay ayaan filayaa sawir aan isla gooskoska dhaxdiisa ku aragnay oo wada galeen Axmed Ilmaas iyo nabahad ay wada galeen sheewaal sawirkaasi ayaa ka xanaajiyay ee ahayd isla markiina waxay isbartay nabahad waxayna uga digaysaa ninkeeda ay uga digaysaa ay ila tahay maadaama marba isbarayso kulli ninkeeda wax quseeyeen ba kala hadlaysaa si ay nabahad wadadeeda u raacato ilmahan markaa nabahad in Axmed Ilmaas ka hareyso Axmed Ilmaas ma sheegi kari Susan iyo nabahad mid uu raaci doona mid uu يعني كوبا دان دونا مسي كري
waxaan markii hore wada u maleynaynay inuu Suuzaan ku badan doono laakiinse qofta Nabhad lagu magacaabo ayuu xoogaa niyada u hayaa bal waan aragnaa sheekadaas iyaduna halkay ku dambayso sidoo kale xalqada soo socotay Tolgaanik lagu magacaabayo wuxuu ka soo bixi doonaa isbitaalka wuxuuna iman doonaa dhankaasi iskuulka imanaya sidaan isla gooskooska dhexdiisaba ku aragnay ha imaada ma xumee asagii IBK wax qusay gooskooska maana ku arag laakiinse dadka intooda badan waxay leeyihiin IBK Tolga xiriirkooda halkaas ayuu ka bilaaban doonaa inkastoo aan la hubin Tolgaana uusan يعني خاينمدي كلها بن كريم بدي مركان ما دام dhaawacyo badan soo gaaray sidoo kale aabiisa mar walba uu caayayo yani aabiisa ayaa caaya wuxuu ku caayay inuu dul yahay ama qof nolosha ka dhacay sadarteeda Tolga waxay leedahay markaan inuu sagaajin doono dhankaas iyo IBK-na inuu u bato ayaa la filayaa waa sida la wada rajaynayo sidoo kale waxa aad u yaraatay fagfagta gabadhii Leela ahayd ayaa aad u yaraatay bariyii u dambeysay gooskooskana Leela wax ku saabsan mana aragay ahayn marka Leela waxa laga yaabaa xalqad soo socotay inay fagfagteedu yaraato ama xooga xalqada ay ku yaraato aragtideedu ayaa laga yaabaa isoo ku haya bal gabadhaas waxay sameyn doonto haddaba sidoo kale waxa aad loo wada sugayaa Afra iyada soo laabashadeeda inkastoo aysan meel ku maqnayn way joogtaa dadka intooda badan waxay hadal hayn ku hayaan gabadhan Afra lagu magacaabo sababta doorkeedu isla markiiba uu xiisaha u dhacay ama isla markiiba loo xiiseyn waayay maxay tahay sababta ka dambaysa arrinkaasi ayaa la dhahay markaas kadibna Kardashian waxay dhaheen Afra gabadha lagu magacaabo sidaan dhibka yar kuma taagayso sidoo kale waxyaalo la yaab leh soo wada waxaasina dadka intooda badan waxay leeyihiin waa Uljaan ay dhibi doontaa halka dadka qaarina ay leeyihiin laadirnimo khaainimo cusub sida Harika qofti lagu magacaabayay ay la soo baxaysaa waana miskiin yar oo tabar yar oo waxay sameyn kartaa ma jirtay bal waan aragnaa Uljaan qaabka ay u gasho waa waa loo badin karaa inay wax u geysan karto ama ay Uljaan dhibaatooyin cusub ku sameyn karto sida hadda koor Harika ay ku sameysayba iyo sidoo kale Emir ninka lagu magacaabay Uljaan wuxuu ku sameeyayba marka iyadana gabadha Afra aan soo rogaal celinteeda waa midaan isha ku hayno haddaba Nabhad maxay uga burisay Suuzaan iyo Axmed Suuzaan iyo waxaan ka wada Caakif Takuur samad ognahayba Nabhad waxay ka xanaaqday isku soo laabashada Caakif iyo Suuzaan isla gooskooska dhexdiisa waxaan aragnay Caakif iyo Suuzaan oo aad isku faraxsan ayaan gooskooska dhexdiisa ku aragnay halkaasina waxaan ka cadaysanay ama noo cadaatay in aysan labadooda isfuri doonin oo sii wada joogi doonaan haddaba daawade muuqaalkan ugu talagalay inaan uga hadalno musalsalka walaalaha intaas ay ku egyahay daawade muuqaalada xiga la soco muuqaalkan like noo saar waan ugu saaxiibkiina Khalid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh